Madaxweynaha Somaliland Musa Bixi ayaa maanta dhagax dhigay waddo cusub oo isku xidhaysa kantaroolka Halaya iyo cisbitaalka Shifo oo dhan 22 kiiloomitir taasi oo dhinaca waqooyi ka maraysa magaalada Hargeysa isla markaana samxadda iyo cidhiidhiga lagaga yareynayo caasimadda Hargeysa. munaasabadda dhagax dhiga ayaa waxaa madaxweynaha Somaliland kala qayb galay safiirada dalalka Ingiriiska, Imaaraadka, Taiwan, madaxda kala duwan ee mashruuca DB Wall, gudoomiyaha xisbiga UCID, xubno ka socday golaha wasiirada, barasaabka gobolka Maroodijeex, maayirka iyo ku-xigeenka caasimadda iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan. ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay madaxa mashruuca Berberi Corridor Engineer Ciise Yuusuf Maxamed Xamari, madaxa DB Wall ee u qaabilsan mashruuca Berberi Corridor Master Angus Miller, iyo safiirka dowladda Ingiriiska Ambassador Kate Foster oo iyadu dowladeedu hirgelinaysa wadadani, iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Cabdilaahi Abakar Cismaan. haddii aan u soo noqdo wadadu waxay u qaybsan tahay 6 qaybood, 5 qaybood oo kamid ah waxay naga maalgelinaya dowladda Imaaraadka Carabta oo jecelahay in halkan uga mahad celiyo. waxa weeyaan 0 kilometer ilaa 78 oo qayb ah section ah. qaybta labaad oo ah 78 ilaa iyo Hargeysa. qaybta saddexaad oo ah bridge-yada oo ah 6 bridge oo 4 kamid imka gacanta lagu hayo iyo 24 Calfar Burgos. waxaa kamid ah qaybtan imka joogno oo ah British Hargeysa bypass, sidoo uu sheegay gudoomiyaha tiimka BI waa 22 kilomitir iyo badh. waxaa kaloo jiri doona qayb labaad oo aan ka wada soconno qolada dowladda Ingiriiska inay nagala shaqeyso oo ah wajaale lafteedu waxay ka mid tahay caqabadaha ka jira wadadan oo iyada lafteedu u baahan in loo sameeyo bypass. waxaa loogu talagalay inay wadadani markay dhamaato capacity ah maalintii inay mari karaan ilaa iyo ugu yaraan ugu badaan 1000 loori baa mari kara maalintii, halka imika ay maraan magaalada 30 ama 40 haday ugu badato. Graded bypass, but what you don't see, because people have been on site for a year now, is all of the analysis behind this: environmental impact assessments, social impact assessments, climate proofing sort of studies, traffic assessments, design, re-looking at the design. There's a huge amount of effort that's going on in those buildings just to make sure that everything that is being constructed here is to the very highest quality. And I'm particularly happy that the UK contribution here is focused not only on supporting enabling the trade corridor and the movement of trade and goods across the region, but really focusing on the developmental aspects around the road as well. So this is also about bringing investment and opportunities and a developmental corridor to this area as well. That's a very important issue from a UK perspective. ugu dambeyntiina waxa uu madaxweynaha Somaliland Musa Bixi si rasmi ah u dhagax dhigay wadada weyn ee 200 oo socon doonta muddo ku siman 22 bilood oo haatan ka bilaamaysa, isagoona soo kormeeray wadada cusub oo inteeda badan carro tulki la dhigay. qaran ahaan wadooyinka oo aad iyo aad inooga dayacan ama ayna wadooyin hagaagsan lahayn, waxaynu u baahanahay inaynu maskaxyo marug soo geyno sidaynu wadooyinaysa lahayn. inta laynaga caawiyana waa alxamdulillah, laakiin inagu waynu dhisa karaan qabaa wadooyin badan. waxaan jecelahay inaan fursad ka faa'iidaysto oo aan soo jeediyo qolada ganacsatada ah maalqabeenka dalku inay samayn karayaan wadada Burca Hargeysa oo ay toon ahaan lacagteedana ka helayaan waqtigeeda. marka wadadan la furo dhawaan sanadka dambe Berbera oo jaale ay noqoto wada xamuul oo baabuur waaweyn jeerayso, ay wadada aragtay oo ay dhooban tahay, waxay la tahay socodka dalka ee bari iyo galbeed iyo isku geli maayaan wadada dekeda u shaqeeya. marka waxaynu u baahanahay inaynu degdeg u furo Burca Hargeysa. taana waxaan ku dhihi lahaa maalqabeenku lacagta waa la heli karaa, waana ka heli doonaan macaashkeedii iyadaba inaynu ku dhiirano. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa.